بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijkeennii qiimaha badnaa fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. taariikhdu maanta waa 15kii bishii dilqacda 1437 hijriyada oo waafaqsan 18kii bisha 8aad 2016. barnaamijkan waxaa soo qabanqaabisay munadamatu lixsaan lilricaayati alijtimaaciya. waa barnaamij toddobaadle ah oo su-aalo lagu weydiiyo fadiilatu sheekh maxamed cabdi umal xafidahu allahu tabaaraka wa tacaala. barnaamijkan asilooyinkiisa waxaad ku soo hagaajin kartaan sanaadiiqda ku dhegan masaajidka iyo emailka ay muasasadu leedahay ihsanmedia@gmail.com. waxaad dib mar kale uga daalacan kartaan webpageka muasasada ihsanmedia.com iyo .net iyo ihsan media oo youtube ah iyo salaf media youtube ah. xalqadeennan caawa waa xalqadii 20aad. su-aasheennan caawa ugu horeysa waa su-aasha 318. wuxuu saa'ilkan leeyahay: assalaamu calaykum sheekh, allah idin xifdiye. waxaan ka shaqeeyaa shirkad ganacsi ah oo aan baraanji wakiil uga ahay. qof macmiil ah ama macaamiil ah ayaan alaab deemiyey. lacagtii daynta ahayd ayuu qayb soo bixin waayey. dayntii ayaan ka joojiyey, kadibna kaash ayuu wax iga iibsadaa. marka lacagtii uu wax ku gadanayay ayaan si uusan u ogayn ugu daraa lacag dulsaar ah si aan dayntii hore uga jaro. marka sheekh maxamed, lacagtaasi ma xalaal baa mise waa xaaraam? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سؤاشاas jawaabteedu wax weeye, xalqo hore inugu soo martay masale la mid ah. masaladuna wax weeyaan, ruuxu xaqa ka maqan ee ruux kaga maqan, dood iyo muranna aysan ku jirin, oo ruuxaasi ogol yahay oo ictiraafsan yahay, hadduu si caadiga kaga soo saari waayo, si uusan ogayn ma uga qaadan karaa? masalada horaan uga soo hadalnay oo masaladan ku magacownay masalatu dafar baa la yidhahdaa. waxaana loo daliishadaa xadiidka caaisha radia allahu tacaala canhuma, bukhaari iyo keyrkii soo saareen. hinda bintu cutba oo ahayd xaaskii abu sufyaan ayaa waxay rasuulka ku tiri: rasuul ilaahayow, ninkayga abu sufyaan rajulun shaxiix, waa nin gacan adag oo bakhayl ah. walaysa yucطinii maa yakfiinii wawaladii, aniga caruurtayda wax nagu filanna nama siiyo. yani biilku nagu cidhiidhiyaa, wax nagu filanna nama siiyo. ilaa maa akhadtu minhu wahuwa laa yaclam, wixii si uusan ogayn aan uga qaato mooyaane, yani si qarsoodiya uusan isagu ogayn inaan biilka uga qaatoon uga dhammaystirta mooyaane, si caadiya biil nagu filan nama siiyo. markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam: khudii maa yakfiiki wawaladaki bilmacruuf, wax adiyo ilmahaaga idinku filan, macruufna idinku filan ka qaado, ama macruuf ku qaado, adoon ka badbadinaynin, oon ku kalax tegaynin. wixii adiyo ilmahaaga ku filan ka qaato buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam. alimaam xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay, xadiidkaa waxaa daliishaday oo waxaa loo daliishaday ciddii cid kale xaq ku leh, xaqiisiina ka soo saaran keli waaye, waxaa inay u bannaan tahay inuu maalkiisii ka qaato qadarkiisii in la-eg isagoon ogayn ama aan idmin. waana qowl imaamu shaafici caleyh raxmatullaahi iyo jamaaca. imaam shaafici iyo koox culimmada ka mid a qabta. waana masalada la yidhahda masalatu dafar saan u sheegnay. laakiin waxay leeyihiin jinsigii uu kaa qabay, noocuu kaa qabay, nooc la mida unbaad ka gudan kartaa, allahuma inay uun suuroobi weyda mooyaane. masaladaasi marka waa masale khilaafiya. abu xaniifa ra'yi kale, imaam axmed baa diidan. laakiin xadiiskaasaa loo daliishadaa inay bannaan tahay, waana madhabka
alimaamu shaafici calayhi raxmatullah wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aasheena markaa horena aan ku darnay, haddana waan yaro tilmaannay shardigaasi wax weeyaan xaqaasi waa inuusan doodi ku jirin waay. xaq uu ruuxu ictiraafsan yahay, ogol yahay, laakiin laga soo saari lahay ee hadduu muran ka qabo oo dood qabo ilaa dooddaa la xaqiijiyo markaa kama qaadan karti. waa in la xaqiijiyo ma isagaa sax mise adaa sax. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aasheena 319